السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبشر حسن شتيفتم يا أنا أهمنا محمد عبدي. لما ولاليه سبسكرايب كنو ساري iyo like aad baan uga mahadcelinayaa inta dambe walaalaha dambe oo nagu soo darsami doona insha Allah ayagana sidoo kale qalbi wanaagsan baan ku soo dhaweyneynaa insha Allah waxaan rajeyneynaa inay naga mid noqdaan walaalaha kalena ay ahaadaan walaalo ma aragtay aan isku xiranahay waxaa jira video aan hadda soo geliyay subaxii hore oo aan magaciisa ama maxaa la ciwaankiisa ka dhigay jacayl dhiig ma lagu qoray wali dhuux ma loo shubay oo waxaan u malaynaa inay magool qaadi jirtay Allah yarxam raaximiin ilaaha u naxariisto يعني waxa laga yaabaa maadaama anaga badana aan dhahno waaridka jacaylkiisa dhanka waaridka jacaylkiisa aan fiirino laakiin caruurta jacaylkooda ma fiirno yani caruurta jacaylka iyagu waaridkood u qabaan ama caruurta waaridku maxaa la oran karaa yani hadda aniga wiilkayga oo kale oo ah yani ilmo anaga aragtideena waayo anagu maxaa la dhahaa bini aadamku Soomaalida ma oran karo laakiin bini aadamka oo dhan dad waxaynu nahay indha ku garaadla indha ku garaadla yani waxa waaye waxaynu aragna kaliyeenu qiimeynaa okay waxaynu qiimeynaa quruxdeenu qiimeynaa qof meel qurux badan taagan ama wax qurux badan waa la wada raacaya waa la wada dabayaacaya qofkan wuxuu rabo ha ahaado laakiin Yurub maxaynu u nimid ama wadamadan maxaa la dhahaa reer galbeedka oo kale dad badan oo markay yimaadeen ka bacdi shalaayaya oo ku dhahaaya maxaa la dhahaa waxa arkaysaa wallahi meeshan waxba ma yaalaan laakiin markii hore sawirada maxaa la dhahaa qofka sirayay moogtaa sawirka quruxda badan iyo waxa la tusay laakiin ma ogeyn wax ka soo horeeyo marka yani waxa ka wada oo hadalku maxaa la dhahaa macnihiisa wuxuu yahay ilmaha jiran ama ilmaha jiran ma oran karno ilaa qofku markuu jiran yahay waa qof oo hargab ama waxaaya laakiin qofku markuu maxaa la dhahaa u baahan yahay daryeel badan ama baahiyo badan uu qabo oo marka ay isdhehaysid yani qof oo asagii isku maxaa la dhahaa filnaan kara ilaa isku filnaashada laba midna waa tan caqliga ama maxaa la dhahaa jirka yaa qofku inuu asagu uu maxaa la dhahaa ii sheeg wax qabsan karo isku filnaashada kala duwan midna waxa waaye midda oo dee maxaa la dhahaa qofku markii aynu isleena qofkan waa caafimaad qabaa waa qof oo jir ahaan iyo maxaa la dhahaa garaad ahaanba isku filan camal inuu asagu iswadi karo laakiin qofku asagoo jir ahaan iyo garaad ahaanba laga yaaba xataa inuusan isku filnayn oo iswadi karin laakiin wax ka badan intaa adiga siinaysid oo ah inaa adigii qofkii haysid hadda wiilkayga oo kale oo aad maxaa la dhahaa adiga aad tahay daryeelihii aad isu aragtid ilaahay ka suko inaa adiga daryeelaysid laakiin adiga midda aniga asaga siina aan la garab taaganahay mid ka badan baa iiga soo laabata waxa laga yaabaa inaa u qaadatid hadda inay tahay tan aakhiro aad dhahdid ilaahay baa kuugu naxariisanaya taasi waa meesheeda laakiin adduunkan baan ka hadlaynaa adduunkan la joogo baa gaal iyo muslimba yani qof cad iyo qof madow qof walba oo ilmo yani xanaano badan ama qof xanaaneeyey oo qof u hibeeyey maaragtay inuu maxaa la dhahaa garab istaago oo qaybtii asaga ka dhinayd intii ka dhinayd uu maxaa la dhahaa ku kabo qofkaasi dobol jibbaar buu ka helaa yani intaasoo jeer wax ku jibbaarma oo aanan ahayn midda aakhiro iyo ilaahay inuu kugu naxariista baa ka helaysaa insha Allah waa idinkaga sheekayn doonaa fi hal video laguma soo qaadan karo laakiin anigu waxaan aaminsanahay nolosha wiilkayga ilaahay yani maxaa la dhahaa asaga qafuur raxiima oo qofka caafimaad siin kara laakiin waa qof ilaahay enerjiyo uu siiyey oo qofka kale uga dhigo يعني قف نولشيسي أساق مركو رلا دالان دعايو اسكو فلان أنا هيسنو مروغيسنيد
inuu ku tusi karo nolosha qiimaheeda inuu kuu iftiimin karo waxyaalo badan oo maxaa la dhahaa adiga markii hore aad isku mashquulinaysay oo aadan kuu iftiinsanayn marka asaga wejigiisa arka inay ii iftiimaan inaan fahmo macnaha ma aqaan inay fahmi kartaan ama yacni hadalkayga yacni in wax ka dambeeya xigmadda aan ka wato in la ila socon karo ma garan karo laakiin calaa kulli xaal waxa waa wax nafsiyan ah waxaan ka hadlayo ma aha wax oo maxaa la dhahaa ama karti ha ahaate ama awood adoo isleed saaka sariirta kama kici kartid oo maxaa la dhahaa roob baa da-aya ma aragtay hawada wadamadan jarmalka maxaa la dhahaa waa wadan mugdi ah waqtiyada qaboobaha ah waxaa aaminsan tahay meel walbo aad tagtid yacni wadana ajnabi ku tahay xataa haddaadan ajnabi ku ahayn wadankaaga adoo joogtid baa waxaa marmarka qaarkood iska dhaadhicin kartaa inay adduunkao dhan kaa soo horjeedo adiga oo dadkoo dhan ma aragtay aanan maxaa la dhahaa markaa 2 tilaabo hore u qaadidba 3 tilaabo hore u qaadaysa inay dadkoo dhan ma aragtaa ku xagxaganayaan dadkoo dhan ma aragta adiga ay ku liidayaan laakiin enerjiya u baahan tahay inaad tiraahdo maya saas ma aha aniga wey anaa mas-uul nafteeda ka ah anaa maxaa la dhahaa ii sheeg qofka kale wuxuu iga aaminsan yahay shaqaday ma aha aniga alxamdulilah wiilkayga markuu dhashay nolosheeda wax badanaa iska bedelay wax badan oo aniga marka aanan ogeyn awood ah oo igu jirta iyo maxaa la dhahaa dareen igu jira iyo garaad igu jira oo aanan ogeyn ayaan ilaahay ku sukow dartii ku bartay marka dee qofka lagama abaal dhaco yaa intaa aniga asaga aan la garab taaganahay aniga keligeyna ma aha dee dabcan walaalihiis iyo ummad kale oo ilaahay oo dhan baa la garab taagan in ka badan buu asagu yacni waddadii aan mari lahaa shalay waddadii aan ku socday waddo ka duwan buu itusay oo aan kaga maxaa la dhahaa aan waxyaalo badan ku ilaaway nolosha aan waxyaalo badan maxaa la dhahaa horumarkii aan raadinayay ama maxaa la dhahaa qofnimadii aan raadinayay ama aan islahaaba ma noqon kartid qofkaas ama waxaas ma gaari kartid aan islahaa inuu asagu ilaahay kasugu asagu sabab u yahay in aan gaaray ama aan gaari karo ama midda kale aan rajeynayana aan gaari karo uu asagu maalin walbaba uu yahay qofka aan ku tiirsanahay oo dhahayo okay waad gaari kartaa oo yacni waxyaalo oo aan hadda aanan kelmado ahayn si qalbi ahaan ah in aan isugu xiranahay oo uu ii tusayo waxyaalaha qaarkood intuitive si ah yacni in aan dareenkayga uu u dareemayo uu igu hagi karo baan ka wadaa marka I don't know in la fahmayay in kale waa adagta marmarka qaarkood si lagu macneeyo siiba luuqadeena soomaaliga markii ma aragtay aadan luuqadaas aadan wixii ku fahmin marka hore ama aadan ku akhrin ama aadan ku ogaanin waxyaalaha qaarkood hadhow si aad u macnaysid oo af soomaaliga ugu macnaysid way adkaanaysaa laakiin waxba ma adka horta nolosha waa adkaantaas waa waxa hoos noo dhiga ma adkaanayso laakiin waa in la fahmaa marka hore waa inaa helaa weygii aan maaragtay ku fahmi lahaa insha allah walaalayaal hanaga ilaawina subscribe-ka iyo inaad noo share garaysaan mar walbana insha allah aan isku xirnaano barnaamij waxaa jira la yiraahdo hiigsiga iyo hadafka nolosha waan insha allah raba inaan idinla wadaago haddaan helo walaalo youtubers ah oo aan rajeynayo oo hadda walaalaha qaarkood aan wada hadalnay haddii ay muhiim maxaa la dhahaa yani muhiim noola arkaan in aan kasoo wada hadalno barnaamijyadaas laakiin insha allah kulleyba aniga janaalkayga waa uga soo hadli doonaa
marka waxaan rajaynayaa in aad maaragta naga caawisaan dhanka subscribeska iyo inaad asxaabta kale sii gaarsiisaan sii share garaysaan aad baan idinkaga mahad celinayaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.